soo dhawo daawade muuqaalkan waxaan kugu wadaagayaa sidaad video editing ugu samayn lahayd app la dhaho CapCut ka hor inta aanan editing-ka aanan samaynin gaajiyar ayaa i hayso cunto ayaan karsanayaa isla cuntadaas ayaan editing ku samaynaynaa ee soo baxay raaca فيديو ساعات أصوات دعوتين أيام وحن كسميننا قاب كان اسكوجو إديت جريني لكن وحن كهر مرينا مركو هرينا نكوجو سلامو سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا جنالك مجيكو عبد الرحمن يرو وحنا سمينا مقالو كسافسن سيدا وحلو دوبو يقلب وحلو دوبو إنها آيفون كا أم سمارت فونز كا إيو عشرة كسافسن إنها تكنولوجيا ده waxaana muuqaalkan uga faa'iideysanayaa inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo asxaabta ku soo biirtay mudooyinka aan hawada ku kala maqnayn iyo inta nala joogtayba waxaan rajaynayaa haddii aadan nagu soo biirin oo haddaba na daawanaysana aan ka rajaynayaa inaad nagu soo biirto adigoo subscribe saarayo la wadaagayo asxaabta u baahan muuqaalo noocan oo kala ah maanta la joogo inaad ku dhibaatooto inaad video aad soo duubtay oo aad rabto inaad edit garayso waa wax aad iyo aad u yar inaad video qurux badan aad samayso oo aad si qurux badan u edit garayso aad social media kula wadaagto asxaabtaada waxa ku soo jiidan kartaa dad aad iyo aad u fara badan sidaa darteeda waxa muhiim ah in aad ma aragtay dhinaca editing-ka aad si fiican isaga saxdo applicationada wax lagu edit gareeyo aad iyo aad ay u fara badan yihiin applicationadaasi qaarkood waa kuwa tayadooda liidato kuwana oo lacagtooda ay aad u badan tahay maanta waxaan idin la wadaagayaa application aad ku edit gareyn karto videogaaga waliba si free ah wuxuu leeyahay qayb oo ma aragtay oo pro ah oo aad iibsan karto laakiin free-ga ayaad wax allaal waxa doonto ku samaysan kartaa application kaasna waa CapCut waa CapCut CapCut yes waa CapCut application kaasi ayaan waxaan ku samayn doonaa muuqaalka hadda aad soo daabatay oo ah sidaad u sameeyay cunto karinta aan ugu edit gareeyay dabcan application-ka wuxuu wataa functions oo aad u fara badan kulligoodna hal video ma uga hadli karo laakiin inta ugu muhiimsan ayaan soo koobayaa videoyaal kale oo gaagaaban oo aan ku sii wadi doono CapCut oo ma aragtay si aad ugu noqoto qof oo khatar ku ah sidaad ugu edit gareyn lahayd application-kan maadaama application-kan aan kugu soo xulay sababta aan kugu soo xulayna ay tahay si free ah ayaad ugu edit gareysan kartaa adigoonan u baahnayn inaad iibsato qaybtiisa oo pro-ga ah marka hore waxaan soo furaynaa application-ka markaan soo furno overview-giisa uu noqonayaa sida u jeedo waxaan isticmaalayaa
qaybtiisa oo freega ah marka qaabkan marka aad ula soo baxdo meeshan oo ku qoran tahay new project ku qoran tahay ayaa taabanaysaa kadib wuxuu toos ku geynayaa videoyaasha aad soo duubtay inaad maaragtay aad soo doorato aniga dabcan marka telefoonkan ayaan ku duubay telefoonkan waa iPhone 14 Pro Max waaye iPhone kan ayaan ku wada sameeyay muuqaalada aan ku marka cuntada karinayo muuqaalada aan duubayo kulligood iPhone kan ayaan ku sameeyay haddii aad rabto muuqaalka dhammaantooda select ayaa taabanaysaa waa soo wada dooranaysaa kadibna timeline-ka oo appka ayaa geysanaysaa ama marka hore hal ayaa u dooranaysaa intaad uga baahan tahay ayaad samaynaysaa laakiin aniga waxaan sameeyay si hadhow waqti dambe igaaga dhumin marka hore hal ayaan u daawadaa qaybta aan uga baahanahay oo kaliya ayaan ka soo qaadanaa hadda waxaan idin la wadaagayaa marka qaybta aad uga baahan tahay qaabkaad uga soo qaadan lahayd طبعا muuqaalkan aad deertaan marka aragto inuu kulligiis dhamaantii u yahay marka aan meeshan waxaan taabanayaa trimkaas markaan taabto abaaran soo wadayaa marka inta aanan muuqaalka aanan soo gelin ayaa meeshan aan ka bilaabayaa intan waxaan ku dhameynayaa meesha oo dhamaadka ahna halahan oo uma baahni intan waa ku ujeedaa marka meeshaas markaan joogo ayaan ku dhaafayaa waa daawanayaa waan fiirinayaa haddii aan happy ku ahay waan soo qaadanayaa marka kulli marka muuqaalada aad soo jartay qaabkaas aad wadaysaa marka soo wada jarjarto ana hadda waan boobsiinayaa markaan boobsiyo sidaan oo kale aan ku wadayaa marka muuqaalada kulligood meesha aan ku faraxsanahay markaan joogo kadibna waan xirayaa marka muuqaaladaas oo dhan aad soo wada doorato oo qaabka adiga aad uga hesho aad u soo wada doorato dhinaca aad u soo jarjarto kadibna kulligood ay ku wada dooran yihiin waxaad taabanaysaa qaybtan la dhaho add أنا هدرتان 18 كليب أيان صو دورتي مركا أد أيان لاي هاي أد مركان رهو كل مركا هدرتان وحو إيفوري إنان كينو تايم لانكا أيو إيفوري تايم لانكا ماشان أيان مركا كو إيدي جرين أيان haddana waxaad idin tusayaa qaabka aad u samayn lahayd muuqaal oo aad muuqaal kale u sii dul saari lahayd oo la dhaho B-roll macnaha muuqaal ku socdo ayaad muuqaal kale sii dul saaraysaa marka muuqaalkaasi aad sii dul saarto aad isugu xiraysaa marka qaabkaas ayaa marka waxaa la dhahaa CapCut markaad joogtid overlay ayaa la dhahaa meeshan oo kala taabanaysaa oo overlay ku qoran overlay marka ku qoranto kadib horta waxaad dooranaysaa meesha muuqaalka oo rabtid inuu kaaga bilaabana hadda aniga waxaan rabaa oo kale meeshan inuu igaaga bilaawdo marka aan talaajada furi rabo amal inuu igaaga bilaawdo kadibna plus ayaan leeyahay muuqaalkaasi markaan taabto kadibna muuqaalkan ayaan marka hore fiirinayaa haddii oo aan daaraya markaan daaro kadib aan ka helo muuqaalka meesha oo iskagala jaraya markaan arko markaas oo kale ayaan marka aan leeyahay trim inaan marka hore soo jaro meesha muuqaalka igaaga bilaabanaya anoo talaajada aan furi rabo ayaan ka bilaabay maadaama xagga aan furi rabay property meeshaas markaan joogo kadibna halahan waan soo jarayaa inta camalan keena halahan markaan fiiriyo waan furayaa kadibna waan soo qabanayaa markaan soo qabto markaan xiri rabo oo kale ayaan ka tagayaa marka alaad markaan soo baxso aan xiri rabo intaasaan rabaa marka inaan muuqaalka kale sii dul saaro markaan taabto waxaan leeyahay sida caadada ah add ayaan leeyahay add markaan dhahdo CapCut marka wuxuu sameynayaa wuu shaqeynayaa oo maaragtay wuxuu raadinayaa si aad overlayga u sameyn lahayd muuqaalka u sii dul saari lahayd marka waa sugaysaa cabaar markuu loading oo dhameeyo oo 100% oo gaaro kadibna maaragtay muuqaalka meeshaas ayaad ku hagaajinaysaa qaabkaas ayaad u dooranaysaa overlayga markuu ku keeno marka waa fiirinaysaa waa controleysaa marka fiiriso marka hore waa daaraysaa marka daarto sidaas oo talaajada u soo furo kadibna aad xirto marka xirto kadibna aad sii xirto laakiin maadaama oo aad u fogaaday ana marka waxaan leeyahay intaas iga ekay weli waan yareynayaa labada muuqaal markii aan ogaado inay isku baxayaan kadibna waxaan taabanayaa labada far waan ku weyneynayaa oo muuqaalka shaashada dhan ayaan ku buuxinayaa kadibna waan fiirinayaa waa controlaya mar labaad sidaan uu noqonayaa marka sidaas ayaad overlay u sameynaysaa
maadaama marka muuqaalka aad duubaysid mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay codadka galaan ama codadka ka qaldamo mise codka gabi ahaanba inaa xirto cod kale sii dul saarto marka waxaan ku tusayaa qaabka aad maaragtay muuqaalka aad codka ugu reebi lahayd ayaan ku tusayaa muuqaalka dooranaysa muuqaalku yahay waa fiirinaysa muuqaalka codka ka raaco aad fiiriso muuqaalkaas aad dooranaysa kadibna hoos aad tagaysa waxaad dooranaysa extract audio codka ku soo baxaya kadibna waxaan dhahaysaa waad dooranaysaa codkaas aad dooranaysaa kadibna delete ayaa leedahay muuqaalkaasi totally cod la'aan ayuu noqonayaa haddana waxaan ku tusayaa qaabka aad maaragtay u kala hormarin lahayd laba muuqaal مثلا muuqaalada aad soo jarjartay waxaa laga yaabaa in muuqaal oo muuqaal kale kala hormaro ama aad jeclaan lahayd in labada muuqaal aad kala hormariso soo markaad waxaa sameynaysaa labada muuqaal inaad kala hormariso hadaad rabto muuqaalkan labada muuqaal ayaan rabaa inaan ka hormariyo marka muuqaalkaas ayaan taabanayaa waan riixayaa markaan riixo sidaasaan leeyahay sidaas ayaan marka order wax la dhaho aad ugu sameynaysaa marka ka aad joogto haddana waxaan kula wadaagayaa speedka marka aad rabto muuqaalka inaad slow motion ka dhigto speedka ay yareyso ama speedka aad ku darto laakiin xusuusnow marka aad duubaysid muuqaalka waxa u baahan tahay inaad ku duubto kaamirada aad ka soo doorato 60 frames per second inaad soo doorato marka 60 frames per second aad ku soo duubto ayaad speedka ku dari kartaa oo na ka yareey kartaa laakiin markii oo maaragtay oo 25 frames ama iskala 30 frames per second markuu ku yahay speedka ma ku sameyn kartid waa ku sameyn kartaa dabcan laakiin muuqaalka ma ku qurux badnaanahay si smooth ma ku noqonahay marka speedka ayaan hadda ku tusayaa marka aad doorato muuqaal oo ay isleedahay marka muuqaalkan oo kale ayaan waxaan ku sameynaynaa speedka ayaan ku dareynaa ana ka jareynaa speedka ayaan ku cayaareynaa marka kadibna waxaan taabanayaa meeshaan oo speed ay ku qoran tahay ayaan taabanayaa normal ma rabtaa mis curves rabtaa ana waxaan rabaa curves ayaan taabanayaa curves markaan taabto custom ayaan ka dhiganayaa kadibna asaga mar labaad taabanaya marka muuqaalka sidaan uu noqonaa hadii marka aan hoos aan u dhigo muuqaalka uu gaabanaya aad u yaraanaya haddaan muuqaalkana kor u qaado zaid oo marka wax u noqonaya halahaas marka muuqaalka meesha aad ka bilaawayaan maxaa rabaa inaan normal ku soo bilaabo kadibna markaan kor u qaado hal mar aan gadiyo kadibna aan hoos u dhajiyo marka sidaan uu noqonaya kadibna hal mar oo marka oo hoos u dhigaa marka kadibna waxay raadaan rabo inaan kor u qaado kadibna aan kan hoos u dhigo kanna waxay raadaan hoos u soo dhigi karaa sidaan oo kale aan dhameyn karaa marka kadib marka ku qanacsan tahay oo speedka iyo waxyaabahaas marka ku qanacsan tahay aad ku faraxsan tahay calaamada saxda taabanaysaa kadibna calaamada saxda hadda mar labaad taabanaysaa speedka marka qaabkaas ugu dareysaa qaybta ugu muhiimsan waa qaybta oo maaragtay colorka aad sixi lahayd laakiin marka duubaysid mar walba waa inaad xasuusnaataa inaad haysato layer kugu filan marka duubaysid oo muuqaalka oo aad saarto dabcan hadda aniga kushiinka layerka aan isticmaalay waxaan ku daray layerarka aniga aan haysto oo maaragtay aan kushiinka dhigay layerka oo waa inuu white ahaada oo layer cad inuu ahaado ayaa aad u wanaagsan markaas oo kale colorka si fiican ayaad u sixi kartaa kadibna layerar kale oo yar yar waa ku dari kartaa maadaama colorka markaa sixaysid shan shay aad ugu muhiimsan marka hore muuqaalka dooranaysaa muuqaalka marka doorato waxaad tagaysaa meesha ay ku qoran tahay adjust meeshaan aad tagaysaa adjust marka tagto waxa ugu muhiimsan marka hore kooda hore waxaad taabanaysaa meesha ay ku qoran tahay exposure marka hore meesha aad taabanaysaa exposure waxa waaye aftiinka waaye ama mugdi yara gelinaysaa ama aftiinka zaid ka dhigaysaa meesha aad ka dhigto marka aniga badanaa si oo maaragtay wax dhan natural ay u noqdaan waxaan leeyahay marka xoogoo yar exposure-ka yarey midda labaadna waxaan tagayaa highlights marka tagto meelaha mugdiga aftiinka dhig meelaha aftiinkeena mugdi ka dhig ay waay marka highlights saas oo kaaga dhigaya nalka hadda fiirid nalka kushiinka hoos sidaas oo aftiin u noqonaya sidaas oo yaraanaya marka si oo natural oo kugu noqdo waxyar highlights waa yareynaysaa kadibna waxaad tagaysaa shadows meelaha mugdiga ayaan kor u qaadayaa marka meelaha hadda marka meesha dhan mugdi noqonay madow noqonay laakiin waxaan rabaa inaan aftiin ka dhigo waxaa ku sii xigo
oo ugu muhiimsan kadibna aad tagaysaa waxa waaye inta aadan tagin saturation waxaad tagaysaa contrastiga aad tagaysaa. Contrastiga waxa waaye wuxuu ku darayaa si oo maaragtay sharpiska ayaa wuxuu ku darayaa aftiinka ayaa maaragtay wuxuu ka dhigaa wax natural ah ama wax oo maaragtay oo aan natural ahayn. Nalka ayaa ka dareemi kartaa marka aad aragto inuu nalka uu saxan yahay kadibna sharpiska aniga mesela sharp badanaa contrastki badanaa waxaan sameeyaa -5 -4 inta u dhaxayso ayaan sameeyaa markii aan meeshan sameeyo kadib saturation aan tagaa. Saturation waa marka colorka waay. colorkana waa muhiim marka hadii aad colorka zaid ka dhigto maqaarkaaga colorkiisa uu gaduud noqdo ama cad oo noqdo ama jaalo oo noqdo meesha ay ka sixi lahayd waa meeshan hadeertaan jida asaga dhan rabo inaan jaalo ka dhigo marka meesha ay ishaada ku macaato oo ku qulqulo qurux badnaato ayaad ku dhaafaysaa. أنا دو حنكو دافع تسالعان لبي يطبن كدبنا وحن تجا شاربن marka tago badana aniga waxaan tagaa sharpenka waxa tagaa konton ayaan ka dhigayaa boqolkiiba boqol mar rabo si zaid oo sharp u noqonayo muuqaalka oo sharp kaaga dhigaya. inta kale waa aad iyo aad advanced u yihiin 10 kale ayaan ka soo sameyn doonaa laakiin marka intaas aan sameeyno muuqaalada dhan hadda mesela muuqaalkan colorkiisa waa saxnaaday waan ka helay haddana muuqaalkii overlayga ahay ayaan dooranaya. muuqaalkii overlayga markaan doorto si u dooranaya calaamadaas yar oo kor ku dhigan ayaan taabanaya overlayga ayaan taabanaya isla processkii ayaad maraysaa sida maaragtay aan hadda aad u sameynay oo kale ayaad u soo sameynaysaa. waxaan kula wadaagayaa qaabka aad marka CapCut aad isticmaalaysid aad music ugu dari lahayd. aniga hadda waxaan isticmaalayaa meeshaan la dhaho audio markaad taabato sound ayaan taabanayaa. sound markaad taabato haddaad rabto muuqaal codadka ku samaysan CapCut-ka dhammaantooda waa free. muuqaalka ayaa dooranaysaa tusaalahan markaad rabtid waxa uu ku saabsan ana hadda waxaan rabaa tusaale ahaan cunto karin waaye meeshaan waxaan ku qorayaa food amalan ku qorayaa muuqaalka waa taabanayaa kadibna waan dhageysanayaa muuqaalka hadduu ila qurxnaado ama codka hadduu ila qurxnaado codkaasaan qaadanaya. hadda ani codkaan soo qaatay codka aad maqlaysay kanoo ahaa marka codkaana ila qurxoonaaday kadibna waxaan leeyahay marka calaamadaas oo plus kale taabanaysaa meeshii ku keena laakiin codka iyo muuqaalka waa kala dheer yihiin marka soo marka muuqaalka markuu sidaan oo kale uu dheeraado aadan rabin hadaarad waxa sameey kartaa split ayaa leedahay kadibna kala jar ayaa leedahay kala jar marka dhaho kan oo kale iga tiraan leeyahay delete ayaa leeyahay. hadii kale waxaan dhigi kartaa meesha ugu dambeysay inaad tagto ayaad meeshaas ka taabanaysaa kadibna sidaas soo jaraysaa waa soo yareynaysaa sidaas oo kale ayaad u adeegsanaysaa muuqaalka hadhow marka aad daarto sidaan uu noqonaya marka. waxaan kula wadaagayaa qaabka aad export u sameyn lahayd. dabcan CapCut si oo ma aragtay oo caadi ah wuxuu ku siinayaa 1080p ku siinayaa marka aad muuqaalka soo duubaysay hadii aad ku soo duubtay 1080p ama 4K aad ku soo duubtay marka meeshaan marka export leedahay waxa aad muuqaal ku soo duubtay inaad export ahaan ugu sameeyay. hadaa 4K ku soo duubtay 10 ama 1080 export ahaan waa ugu sameey kartaa laakiin hadaa muuqaalka marka hore aad ku soo duubtay 1080 4K aad rabto inaad export ugu sameyso muuqaalkaaga ma qurux badnaanayo waa ku qasaaraysaa. si aan marka oo 4K aan u doorto meeshaas oo 1080 ku qoran aan taabanaya kadibna meeshaan 4K ama 2K 4K meel ku qoran tahay ayaan geynayaa kadibna waxaan leeyahay export isamee. muuqaalo kale oo gaagaaban ayaan waxaan uga hadli doonaa functionska ama qaybaha kale oo harsan ayaa muuqaalo kooban oo gaaban ayaan ka sameyn doonaa. waxaan idin rajeynayaa inaad si fiican uga faa'iideysateen. dabcan muuqaalkan ma noqon doono muuqaalka ugu dambeeya oo aan CapCut uga hadli doono iyo iPhone-ka muuqaalka aad u edit garayso. muuqaalada soo socdo waxa uga bogan doontaa functionska noo haray iyo qaabka aad ma aragtay gradingka ama ma aragtay codadka iyo qoraalada iyo filterska iyo waxyaabahaas loo sameeyo anagoo isticmaalayno free versionka anagoo isticmaalayno. waxaan rajeynaynaa muuqaalkan si wanaagsan aad uga faa'iideysatay. intaan muuqaal kale ku kulmi doono waxaan idin leenahay nabadiino. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.